kulan iyo ismaqal wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka Sirta Media waxaad ku soo dhawaataan warka galab ee channelka Sirta Media aad ku daawan doontaan qodobo xasaasi ah. Sirta Media Sirta Media wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in mid ka mid ah darawallada golaha wasiirada maamulka Jubbaland uu goostay dhanka Al-Shabaab isla markaana uu iska dhiibay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Darawalkan ayaa u shaqaynayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta maamulkaasi Jubbaland Mustafa Xaaji wuxuuna la goostay gaari qaali ah oo wasaaraddu ay lahayd. Gaarigan ayaa nuuciisa lagu sheegay Hartoob waana gawaari loogu isticmaalo dhulka bacaadka ah kaasoo horey Jubbaland ay ugu deeqday hay'ad caalami ah. Wararka ayaa intaasi ku darayay in gaarigan la geeyay magaalada Jilib oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab sida ay inoo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay. Ma cadda sida ay ninkan ugu suurto gashay inuu la baxsado gaarigan ay leedahay wasaaradda biyaha iyo tamarta maamulka Jubbaland iyo sida lagu ogaan waayey wada shaqaynta kala dhexeysa kooxda Al-Shabaab. Dhanka kale ma jira wax hadal oo ka soo baxay mas'uuliyiinta Jubbaland iyo saraakiisha ammaanka maamulkaasi oo ku aadan shakhsigaasi la goostay gaariga ay leedahay wasaaradda biyaha iyo tamarta Jubbaland. Waa dhacdadii labaad iyadoo dhowaan darawalka guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu isku dhiibay kooxda Al-Shabaab taasi oo cabsi xooggan haatan ku abuureysa mas'uuliyiinta maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda. Darawalkan oo muddo 4 sano la shaqaynaya Mursal ayaa maalmo ka hor u goostay dhanka Al-Shabaab isagoona markaasi ka tagay guriga guddoomiyaha waxaana arrintaasi ka dhashay shaki xooggan iyo walaac amni maadaama aan xog badan laga helin baxsashadiisa. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dalku ka soconaya howlgallo culus oo ka dhan Al-Shabaab kuwaasoo la filayo in bilowga sanadkan ay si toosa sidoo kale uga bilowdaan deegaanada Jubbaland. Markan haddii aynu egno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagaya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed oo haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u xooggan. Ilaa waradii lagu kalsoon yahay ayaa Sirta Media u xaqiijiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi gaarayo saacadaha soo socda isla markaana uu daafuri doono shirka lagu wado inuu ka qabsoomo gudaha magaaladaasi. Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ammaanka si weyn loo adkeeyey iyadoo qabanqaabada soo dhoweynta madaxweynaha laga dareemayo gudaha magaalada Baydhabo. Wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb ka noqon doono shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasi oo uu iclaamiyey guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo halkaasi ku sugan isla markaana diiradda lagu saari doono xalinta khilaafyada ka taagan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirkan oo ah mid xasaasi ayaa la filayaa inay ka soo baxdo natiijo wax ku ool ah oo dan u ah shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madashan ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgelaya xubnaha mucaaradka ee Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo bilooyinkii la soo dhaafay wajahayay xaalad kacsanaan oo kaga imaanaysa dhanka mucaaradka oo ku baaqayay in doorasho ka qabsoonto gudaha magaalada Baydhabo. Sida qorshuhu yahay waxaa la filayaa in go'aamo wax ku ool ay ka soo baxaan shirkan oo ku soo aaday xilli loo baahnaa oo qalalaaso ay ka taagnayd gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xiisadda ayaa ka sii dartay markii ay mucaaradku ka hor yimaadeen muddo kororsiga loo sameeyey Laftagareen waxaana ka dhashay dagaal ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo. Si kastaba waa booqashadii labaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoona safarkiisii ugu horeeyey ku bilaabay magaaladaasi kadib dib u doorashadiisii 15 May ee sanadkii 2022. Dad badan ayaa isha ku haya natiijada ka soo bixi karta shirka ka qabsoomaya gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga gudaha dalka Masar ayaa kulan gaar ah Qaahiro kula yeeshay madaxweynihii hore ee dalka Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan. Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa madaxweynihii hore ee dalka Cabdiqaasim Salaad ku booqday hoygu ka degan yahay magaalada Qaahira si uu uga wareysto xaaladda guud iyo sidoo kale caafimaadkiisa maadaama muddo uu ka maqan yahay gudaha dalka. Labada mas'uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha amniga siyaasadda dalka
sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. waxaan hoygiisa Qaahiro ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan. waxaan ugu tegay inaan hubiyo xaaladiisa caafimaad iyo inaan uga xog waramo halka uu dalku marayo, gaar ahaan xaaladda guud ee amniga iyo siyaasadda, ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. dhankiisa madaxweynihii hore ee dalka Cabdiqaasim Salaad ayaa soo dhoweeyey dadaalka xukuumadda ay ku aadan ka hortagga Al-shabaab iyo dagaalada ka soconaya gudaha dalka. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu ku rajan weyn yahay inuu dib ugu soo laabto dalka gudihiisa si uu ugu noolaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqashadiisu ay qaadanayso maalmo ayaa ilaa iyo hadda kulamo xasaasi ka wada gudaha dalkaasi, isagoona kulamo kala duwan la yeesha hoggaanka dalka Masar oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay kor u qaadidda xiriirka iyo xoojinta iskaashiga dhaqan dhaqaale u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah Soomaaliya iyo Masar, iyadoo Masar ay ballan qaaday in Soomaaliya ay ku garab istaagayso dib u dhiska iyo ka shaqaynta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Masar ayaa ka mid ah dowladaha Carabeed ee haatan xiriirka wanaagsan uu kala dhexeeyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo, waxaana horey dalkan u booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. faahfaahinno dheeraad ayaa waxaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada booliiska Soomaaliya ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee caasimadda Muqdisho, maadaama laga cabsi qabo in halkaasi ururka Al-shabaab ay ka geystaan weeraro khasaare dhaliya. howlgalkan ayaa waxaa horkacaya taliyaha qaybta Weliyow Cadde Gaashaanle Isaaq Maxamed Ciise, waxaana sidoo kale qayb ka ahaa maamulka degmooyinka gobolka Banaadir. Gaashaanle Isaaq Maxamed Ciise oo ka warbixiyay howlgalkan ayaa ka hadlay meesha uu marayo ammaanka dalka, isagoona bogaadiyey guulaha laga gaaray howlgallada ka soconaya gobollada dalka. sidoo kale waxa uu tilmaamay in culayska kooxda Al-shabaab lagu hayo uu keenay in si dhuumaalaysi ay ku soo galaan gudaha magaalada Muqdisho, isagoona shaaciyey inaysan macquul ahayn in lagu soo dhoweeyo ama laga kireeyo guryaha magaalada Muqdisho. taliyaha Weliyow Cadde oo hadalkiisa sii wata ayaa dardaaran culus u jeediyey shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isagoona ugu baaqay in ay amnigooda ilaashadaan islamarkaana aysan guryaha ka kireyn shabaabkii ugu badnaa ee haatan soo galay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeraya warkii ka daawanayseen janalka Sirta Media. Tani kulanti dambe, nabadgelyo. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media. Media.